Assalaamu calaykum saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa sida markaa website lacag looga sameeyo dabcan. Waxaa jiray qaybtan qayb ka horeysay inagoo kaga hadlayna marka aynu u sameynaynay channelkan YouTube channelkan website-kiisa. Dabcan sidaynu ogsoonahay dhammaanteen maaha wax aynu isku qarino oo website-ka waxaa laga sameeyaa lacag gaar ayaa laga sameeyaa. inta badan lacagta waxaad uga sameyn kartaa inaad website-kaaga marka koobaad wax kusoo qorqorto, kadibna markaa wax kusoo qorto aad xayeysiinta u furato, kadibna markaa aad lacag ku hesho qof walba oo website-kaaga soo booqda oo markaa xayeysiintaas dhex yaacaysa website-kaaga oo furan doonta ku dhufto dabcan inaad lacag kaga sameyso. balse waxaa taas la socda shuruudo ayaa la socda dabcan. okay iminka hadda website-kan aad arkaysaan oo website-kii markaa aynu u sameynay channelkeena dabcan. saa arkaysaan website-ka hadda waxaan soo geliyay, saa arkaysaan website-ka waa ka waxaan soo geliyay waxa ku qoran saad arkaysaan Yaasir Marketer, link waxaan soo dhigi doonaa description-ka. soo kale waxaan kusoo qoray ilaa hadda 3 article kan iyo kan ayaan kusoo qoray dabcan. saa arkaysaan waxaan kusoo qoray 3 article-kan iyo article-kan kale iyo qoraalkan kale aan kusoo qoray dabcan. saa arkaysaan marka aad rabto inaad website-kaaga aad lacagta u furato waxaa loo baahan yahay inaad soo dhigto ugu yaraan 10 post inaad soo dhigto 10 qoraal wax aad u yar inaad 10 qoraal aad soo dhigto kadibna aad lacag u furato qof waliba oo website-kaaga booqdo aad lacag ku hesho. wax aad iyo aad cajiib ah oo markaa qof walibana uu sameyn karo. internet kaliya waxa uu u baahan yahay inaad dadaasho oo juhdi aad isgeliso kaliya ayuu kugu baahan yahay. okay haddii aynu waxay isla eegno dabcan aan isla eegno waa maxay xayeysiinta, see u egtaa xayeysiintu. xayeysiinta aan ku sheegayo iminka website-kan oo website Soomaaliya wuxuu kusoo qoraa waxa uu kusoo qoraa waana adigu kula mid weeyaan dabcan. soo kale xayeysiinta lagu sheegay waa tan, xayeysiinta lagu sheegay meel kale kaagama imaana waa tan. muxuu soo qoray waxaa laga yaabaa website-kaaga inaad bishii 30 maalmood, bishii waa 30 maalmood saan ogsoonahay ay ka kooban tahay inta badan bilo. okay 30 maalmood haddii aad asbuucii haddii aad soo qorto website-kaaga intaad sameysato oo aad kusoo qorto website-kaaga tusaalahan oo kale aad kusoo qorto dabcan haddii aan karooso aad kusoo qorto asbuucii haddaad soo qorto 2 qoraal ku dhufo bishii 4 asbuuc ayay ku kooban tahay. 4 asbuuc waxa weeyaan 8 article lagu dhuftay haddaad wado 4 bilood oo kaliya website-kaaga waxay soo gelisay 32 article. waa markay ugu yartahay ka waran haddaad 5 article soo geliso asbuucii waxay kaa qaadanaysaa ugu yaraan ka yar hal saac ayay kaa qaadanaysaa dabcan. okay 5 lagu dhuftay haddaad soo geliso asbuucii waa 4 waxa weeyaan 20 article ayaa soo gelisay. 20 article ba dabcan haddaad ku sii dhufato oo 12 bilood ku dhufato waxay noqonaysaa 80 article ay noqonaysaa. waa markii dadka qaarkood ay waxay sameeyaanba waxay u soo geliyaan saac ay u soo geliyaan. taasna waxa weeyaan ku kalifaysa inay ku xisaabtamayaan article walba oo soo qoreen ama post walba oo sidan oo kale ah in loo soo fuulin lahaa xayeysiintan kadibna qof walba oo arka iyo qof walba oo kali ku siiyaba inuu lacag sameeyo dabcan saynu sila arkayno. okay hadda haddii aan ka soo qaado maxaa gelinaysaa website-kaaga. waxaa gelinaysaa tusaalahan oo kale waxaa gelinaysaa article-ka wax ka dhigaysaa xigmad cajiib ah xul aan noocaas ka dhigaysaa kadibna wax adiga maskaxdaada ku jira ilaahay xigmad uu ku dhiibay ayaa kusoo qoraysaa. tan kaliya maaha website-kaaga wax ka dhigi kartaa website war ah baa ka dhigi kartaa website dadka waxyaabo badan ka sheekeeya ka dhigi kartaa. waxa markaa adiga aad ku fikrayso aad ku fiicantaa ee tuska ka dhigi kartaa kadibna waxa lagu soo fuulin doonaa xayeysiinta waana codsanaysaa dabcan. aad iyo aad ayuu fududahay inaad xayeysiinta codsato lacagna ka sameyso. okay hadda inagu waxaynu sameynay dabcan saa arkaysaan website-kan saa arkaysaan waxaan ugu talagalay inaan arrimaha teknolojiyadda iyo waxyaabahaas aan kusoo qorqoro dabcan. saa arkaysaan insha Allah asbuucii hore markaan sameynayay website-kan domain-kan ayaan iibsanayay. saan u iibsanayna muuqaalkan dhexdiisa ayaan ku arki doonaa. waa arkaysaan hadda website-kan oo kale hadda haddii hadda article-kan oo kale wuxuu ka hadlayaa
article-kan wuxuu ka hadlayaa sidii aad u heli lahayd domain iyo hosting. marka koowaad waxaa loo baahan yahay inaad hesho يعني سهل لعق وصميس واحد جدد ده بلوج لعق مقسمين كرا بلوج وقسمين كرتا لعق لكن وقولمي ومركز دومين ادو يبسيتي ومركز دومين ادو يبسيتي ويان دومين واحد لها .com تاس وكلا يلا لها .com .net .org وحاسنا يلا لها واي وحي كو سهليسا ارتكل كان هذا ضاق الفوتو ارتكل كان واحد جا سيرفر وكو كتسين ياهي داتadiisa haysa ayaa jirta serverkaas يعني waxa uu u baahan yahay mataqaana wuxuu u baahan yahay lacag ayuu rabaa yani lacag ayuu daatadan ku waayanayaa iskama kaahaynayo soo kale kambaniyadu way kaleeyeen oo mataqaana yani isku mid maaha waxa jira mataqaana kambaniye maarata lacagtooda aad u qaalitaa ayaa jira hada kambanigan loo yaqaano shirkadan loo yaqaano Bluehost waliba mataqaana linkigan maarata aan ku soo dhigi doono description-ka waliba waxa jira mataqaana qaab aynu marka discount u sameeyeen ayaa jira video muuqaalkiisa dhameyso qaab waxa jira discount u sameeyeen inagoo marka $125 intaan ka soo qaadno $125 intaan ka soo qaadno keenayna marka yani $59 oo kaliya inagoo $59 kaliya keenayna ayaa marka kaga bogan doonta okay kaliya waxa sameynaysa mataqaana article-kan soo loo helo free domain name iyo hosting qiimo jaban kaliya waxa sameynaysa waxa u baahan tahay inaad hesho domain name-ki datadan meeshii kugu kaydsamay lahayd ay u baahan tahay datadan meeshii kugu kaydsamay lahayd ay u baahan tahay datadan waxa maartay la gelinay meeshii kugu kaydsamay lahayd ay u baahan tahay okay waxaynu ku baran doonaa qaabka marka website-ka aad samaysan lahayd inta badan dadku ma dadaalaan haddaad dadaasho oo website-kaaga aad dhisato oo toban qoraal kaliya aad ku soo qorto mirahaaga mar ayaa mirahaaga kasban doontaa wax dhigi doontaa maalinkaas sameeyay wallahi mataqaana yani maalinkaas aad baa u dadaal badnaa mataqaana saaxiibkeena aad iyo aad ayuu la taliyaa dheesa soo kale xirfadan waxa ku shaqeysta dad yar ayaa ku shaqeysta oo markaa fahansan ayaa ku shaqeysta kaliya mataqaana wax ku soo dhigaysaa adigu mataqaana ilaa maaragta bustiye aad u yar ayaa ku soo dhigaysaa kaliya qof walbo booqdo xayisiinta kaliya xayisiintana waxay ka timid xayisiintana meel kale kama iman waxay ka timid kambaniga Google waxa uu leeyahay mataqaana qayb la dhaho mataqaana Google ADS ayuu leeyahay Google ADS dadku waxay ku bixiyaan lacag hada kambanigan waxaan xayisiinaya motorodan iyo barnaamijyadan xayisiinaya waxa uu lacag ku siiyay Google markuu lacag ku siiyay adiga waxa la sameynayaan Google waxay sameynayaan waxay ka soo muujinayaan dadka website-yadooda waayo dadku waxay haystaan dadkii booqanay ay haystaan dadka markay soo muujiyaan qof walba oo click siiyo waxa laga yaabaa xayisiintan kaliya halkii mar aan click ku siiyo inuu yani Google uu ku soo siiyo qofkan $1 yaraan ani markii Google wuxuu siinayaa oo yaraan wuxuu siinayaa 0.10 ayuu siinayaa 0.10 haye 0.10 marka aniga xayisiintii la igu siiyo qof walba oo kali gareeya ka war maalinka haday 100 qof kaliya ay click ku fatay waa imis 100 qof kaliya haday click ku siistay maalinka waxa haysataa $10 ay haysataa $10 lagu dhuftayna bishii waxa weeyaan mataqaana bishii waxa weeyaan waa $300 lacag yar ma sanadkii waxa ka soo gashay website-kaagan oo kaliya ayaa waxa ka soo gashay adoo maaragta meel kale mataqaana yani maaragta meelaha kale ee shaqooyinkaaga waxaaga iska wata qoraal aad soo qortay aadna u soo qortay sida Facebook aad wax ugu soo qori jirtay Twitter-ka aad wax ugu soo qori jirtay meelahaas maaragta ka sheekeyn jirtay kaliya ayaa halkan kula wadaagtay oo hadalkaaga ayaa wax u noqday xigmad cajiib ah oo dadku ay akhristaan okay taa qodobkaas oo soo garanay qodobka labaad oo hadda aan xaqiijin doono waxa weeye halkee ka keenaysaa dadkii halkee ayaa ka keenaysaa dadkii marka adiga website-kaaga akhristayaasha ka noqon lahaa cajiib su'aashii ugu badneed ayaa waxay noqotay su'aashaas dadka halkee ka keenaysaa aad iyo aad u fududahay waa wax simple ah wax adagna ma aha dabcan adiga su'aal hadii aan ku weydiiyo muuqaalka daawanaya halkee ka keentaa yani marka aad wax raadinayso halkee wax ka raadisaa aad iyo aad u fududahay wax ka raadisaa Google adigana yani marka website-kaaga aad wax ku soo qorto hal qoraal ha ahaade qofku wuxuu ka soo raadinayaa Google ayuu ka soo raadinayaa tartiib si aad iyo aad u fududay website-kaaga soo helaya kadibna website-kaaga dhinac walba xayisiin baa ka saaraysa qof walba oo marka website-kaaga xayisiintaas arka يعني lacag baa ku helaysa soo kale qof walba oo marka yani website-kaaga xayisiintaas ku dhuftana lacag ka sii badan aad ku helaysa waa wax maaragta aad iyo aad u fudud inaad mataqaana aad lacag samayso
soo kale dadku inta badan mataqaanaa yani inaad guuleysato ma aha inaad kasii boqdo waa inaad mataqaanaa guushaada aad mataqaanaa aad ku darsataa adayg iyo mataqaanaa dadaal fara badan aad ku darsataa qof walbana lacag waa uu ka sameyn karaa qof walba lacag waa ka sameyn karaa website-ka soo kale waxaad sameyn kartaa Facebook page gruubyada waa ku share gareyn kartaa dabcan balse taas muhiim ma ah oo waxaa ka fiican inta badan 99% website-yada maba sameeyaan sidaas oo waxaaba ka badanba Google search inuu qofkiisu ku soo search gareeyo ayaa badan soo kale saaxiibayaal muuqaalka waxaynu ku daawan doonaa qaybta dambe aabka marka aynu u iibsan lahayn domain iyo hosting-kii waliba iyagoo aad iyo aad u qiimo jaban soo kale yani waxaan mataqaanaa ku tusi doonaa sida marka anigu iibsaday mataqaanaa domain-kana hadda isticmaalaya Yaasir Marketer oo website ka sameeyay soo kale saaxiibayaal qof walba insha Allah oo marka yani domain-ka iibsado dabcan insha Allah waa caawin doona hadoo alaymo waxa marka yani website-ka uu ka kici karo oo mataqaanaa lacagta inaad u furato ku suurtagelinayna waxa weey inaad marka domain-ka soo kale domain-ku yani wax kala ma aha si aan hore u soo sheegnay waa halkii aad marka aad storage-ka aad wax ku kaydsan lahayd weey tusaalaan website-ka wax marka soo qorqorayso aad ku kaydsan lahayd weey insha Allah ka bogsho wacan okay saaxiibayaal hadda waxaynu ka bilaabi doonaa step-ka marka ugu horeeyay oo ah ama qaybta marka ugu muhiimsan oo website-ku ka kaco oo ah yani inaad haysato marka koobaad domain hosting saa arkaysaan website-yada adduunka ugu waaweyn ee kamid yahay website-ka koobaad Google yani waxa marka yani waa company-gan oo ah company-ga adduunka ugu weyn waxa uu leeyahay domain waxa loo yaqaan domain waa .google.com domain-ka lagu sheegay waa inta domain-ku waxa weeye .com .net .co.uk balse aniga waxaan kugula talin lahaa inaad marka aad qabsato ama aad website-ka ka dhigato .com sida looga dhigtana insha Allah waan ku bari doonaa soo kale inaad u baxsato magac aad iyo aad u qurux badan soo kale waxaan ku hayaa company marka aad iyo aad u wanaagsan oo yani service aad iyo aad fara badan ku qabanay soo kale qiimo dhimisna ku sameynay insha Allah qiimo dhimista qaabka loo sameeyo waan ku tusi doonaa soo kale qiimo dhimistaas hal mar ayaad chance u helaysaa hal camera ayaad chance u helaysaa markaana waa inaad ka faa'iidaysataa insha Allah oo marka ah yani marka ugu horeey link-ka ku dhufato kaliya ah balse haddii aad marka aad ku dhufato mar dambe kuma soo saari doono option-ka qiimo dhimista okay soo kale waxaad helaysaa يعني واحد متقنا suurtagelinay in mataqaana la jabsan waayo yani website-yada adduunka oo ah yani qofilkan aad arkaysan oo loo yaqaano SSL certificate waxaad ku heli doontaa balse free ayuu kugu siin doonaa linkigan marka YouTube-ka video-ga aad daawanayso description-kiisa yaala markaas ka duwaan geliso okay waxaad ku dhufanaysaa saad arkayso video-ga hadda daawanayso description-kiisa saa arkaysaan halkan waxa ku qoran Yaasir Marketer channel-kana magaciisa soo kale saaxiibayaal channel-kana muuqaalkana like saara insha Allah okay waxaad ku dhufanaysaa linkigan okay waan ku tusi doonaa qaabka qiimo dhimista u sameynayso qaabka marka free SSL certificate oo leeso bilow ilaa dhamaad qaabka marka website-kaaga oo qurux badan insha Allah soo kale saaxiibayaal waxaa jira yani mataqaana 2 maalmood ayaa mataqaana aan arday qaadanaya si free ana u qaadanaya insha Allah يعني dadka mataqaana channel-ka u helay way marka ugu horeeyo marka waxaad igala soo hadli doontaa Telegram-ka igala soo hadli doontaa marka insha Allah okay yani dhalinyartaas ayaan tababar doonaa hadoo aad insha Allah okay linkigan ayaad ku dhufanaysaa dabcan linkiga marka sida ugu dhufato waxa uu geyn doonaa website okay saaxiibayaal linkiga ayna kaga soo dhufanay qaybtan description-ka oo channel-ka magaciisa hoostiisa waxa uu nageeyay website-kan ayuu nageeyay dabcan ma aha inaad website-ka aad halka markaba sii doorato fadlan halka ha dooran haddii aad halka doorato yani wax qiimo dhimis ah kuma sameyn doono waxa sameynaysaa marka koobaad waa yani secret type aan aniga arkay way aan tijaabiyay waxa marka yani aan soo tijaabiyay way dabcan halka aad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato channel-ka yani description-kiisa marka soo ugu dhufato linkigan waxa uu geyn doonaa linkigan waxa ku soo dhigi doonaa sidoo kale qaybta Telegram-ka qaybta community-ga ayaan ku soo dhigi doonaa insha Allah marka ku dhufato waxa uu geyn doonaa yani website-kan uu geyn doonaa halka ha ku dhufan qiimaha yani halkan uu qiimaha ku siiyaan doonaa waxaad ku dhufanaysaa yani loogadan hoosteeda ay ku qoran tahay halkan WordPress ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa waxana waa waxa aan soo tijaabiyay aanu ka soogay dabcan soo arkay adigana indhahaaga ayaad ku arki doontaa hadda okay WordPress hosting WordPress aan ku dhuftay WordPress system ayaan ka sii doortay okay marka WordPress hosting sii doortay waxa uu soo saaray few plans oo ah balaanadan kala duwan ay soo saaray arkaysan few plans kan aad ku soo dhufanaysaa okay few plans marka saaxiib ku soo dhufatay waxa uu ku soo saari doonaa options kan oo ah yani basic plus choose plus iyo pro waxaad ka dooranaysaa yani qaybtan oo kale pro waxa isticmaala dadka websites-ka millionska ee dadka mataqaana billionska mataqaana yani ay booqdaan ayaa isticmaala insha Allah waynu gaari doonaa halkan
soo kale qaybtanna waa qayb lamid ah balse adigu waxaad isticmaali kartaa labadan optionka pluska ah iyo optionka basic ah balse inagu hadda waxaynu samayn doonaa waxaynu isticmaali doonaa optionkan basic ah ayaynu isticmaali doonaa waxaad ku heli doontaa one website 27 maalmood oo lagu caawinayo storage-kiisa maasha Allah ah yani waxaad ku heli doontaa oo kale tusaalahan oo kale yani waxaad ku heli doontaa free waxa ku jirta SSL certificate oo halka ay siiyaan kambaniyada kale lacag free SSL certificate oo kaliya ay siiyaan qiimaha marka ay halkan kaga iibsanayso website-ka iyo total service-ka lagu qabanayo oo dhan okay inagu waxaynu dooraynaa si marka qiimaha inooga yaraado select basic aynu dooraynaa saarkiisaan qiimahana waa inuu yareyn doonaa insha Allah balse waa hadii aad ku soo dhufatay linkigan hadii aad ku soo dhufatay way saarkiisaan saaxiibayaal waxay noo soo baxday yani close iska dhisaatan okay waxa ku soo baxday sidan ay ku soo baxday Bluehost create new domain iyo use domain okay kaliya halkan waxa taabanaysa yani channelkeena magaciisa ayaan ka dhigayaa hada waxaan u bedelayaa yani website ayaan ka dhigayaa dabcan saarkiisaan halkan marka yani website-kaaga magaca u bixinaad ku qorto .com halkan kuma diraysa halkan ay kugu jirtaa .com-ka halkan waxa ku qoraysaa kale Facebook hada Facebook option-ka dalka galiyo Facebook hadaan galiyo ima banaano yani available ma ah oo yani company dhan ayaa la dhahaa Facebook sa arkaysaan halkan .com aniga hadda waxa jira yani .com .net .org .online .site waxa soo ka dhan weeyaan balse waxa updatesan yani professional anigana aan kula talin lahaa kulana jeclaa inaad ka dhigato .com magac wanaagsan aad bixisato insha Allah soo kale halkan hadaan idin sharxo waxba ku dawqeynaa yani qof horay website u lahaa way dabcan qaybtan dooran qaybtan insha Allah dooro insha Allah kadibna waxaad dhigi doontaa next aad dhigi doontaa okay qiimaha sida loo dhimo hadda ayaan ku tusinaa waxay noo ahayd Soomaaliya $3.45 qofkii xasuusta dabcan sa arkaysaan website-keena wili lama qaadan oo waxa weeye domain yasirmarketer.com is available oo waa website marka yani banaan way sa arkaysaan saaxiibayaal qiimaha hadeen hoos u baxna hadda waa $125 dabcan waa qiimo aad iyo aad u kulul dabcan saddexdan hadeen iska dhinno saddexdan yani turn on turn off iska dheh qaybtan iska dhin saarka saddexdaas tigta qaad wili waa $78 lacag aad u badan way dabcan saarkaysan qiimahan waxaynu sameynaynaa intaan optionada soo buuxsan waa hadii aad linkiga description-ka yaala soo raacday waxa sameynaysaa secret tab aan aniga mataqaana aan soo arkay way halka ayaa tagaysaa halka falaarta ay tagaysaa waa ka falaartaas marka tagto waxa ku soo bixi doona claim saving $2.65 ayaa ku soo bixi doona waxay noo noqotay aynu isla eegna markan okay claim saving ayaa dooranaysaa sa arkaysaan qiimihii muxuu noo noqday qiimihii hadaynu soo eegno يعني halkan hadaynu soo ogno 12 bilood hadaynu ka dhigano dabcan saarkiisna 12 biloodna ka dhigo insha Allah hadaa 3 sano rabta taa isticmaali kartaa okay kuwan iska tirtir kuwan yani click iska dhig yani kuwan markay saxsanaayeen markii waxay noo aad ama iska tirka kuwan iska tirtir dabcan saarkiisa iska tirtir qiimihii wuxuu noo noqday $59 waa very cheap yani waa wax ma taqaana yani aad iyo aad maaragtaa yani u yar weey website-kaagana maaragtaa marka lacagta saa ugu furato one day ayaaba intaa ka sameynaysaa dabcan one day ayaad wax ka sameynaysaa intaa وهدي أتاي قف دالي هدي أتاي مثلاً قف يعني وحقبص إنترنت كانوا العكس سميره فضلاً إنترنت كان دي العكس سميره سيزن أقص سمير طبعاً سو كله يعني ويجرين مركي ورا اللي يجري ويب سايت كاس هدي عدد أدرتو مثلاً عدد أدرتو يعني العجبة كويسة ما أنت واحد يستا أديك يعني فرصة أد معركة أديك ويب سايت كوسمين كرتو أو أديك العجك اللي جاهي يجري طبعاً أديك يعني اللي جسيسين يجري ولي بقى ما أنت أديك العجك هذه أسمي صوته أو نرنا أو ويب سايت كا يعني كنا قطو قف له ويب سايت كا نقطو ويب سايت كنا مثلاً يعني ما أنت أنا قط خوف مركا إنترنت كالعكس سميره أوكي waxa sameynaysaa marka inta sameysay qiimo dhimista soo sameysatay halkan ayaad magacaaga gashanaysaa halkan oo kale waxa gashanaysaa aniga soo buuxisa arkaysaan halkan magacaaga first name-kaaga ayaad gashanaysaa halkan last name-kaaga ayaad gashanaysaa okay waa gashanaysaa halkan business name-kaaga gashanaysaa su'aalaha waxa ka dhigaysaa business name-kaaga waxa ka dhigi kartaa website-kaaga magaciisa halkan country wadanka marka aad joogto oo aad ku nooshahay oo aad ka haysato mataqaanaa wax maaragta wax dhici kara wax walba wax ka filo wadanka marka aad joogto oo aad u dhalatay ayaa dooranaysaa dabcan okay Soomaali ana doortay dabcan sa arkaysaan halkan way isbedel doontaa Soomaali isku bedelaysaa okay hoos ayaad baxaysaa saaxiiba halkan waxaad dooranaysaa xaafadda aad ka joogto magaalada marka aad sii joogto aad ka dooranaysaa Soomaali aniga ama yani
third district ayaan doorta arkaysaan. Halkan magaalada aad joogto aad gashanaysaa Garowe ayaan doorta arkaysaan. Halkan postal code-ka Soomaaliya postal code mala yani 00252 furaha Soomaaliya ayaan doortay. Halkan waxaad gashanaysaa phone number-kaaga ayaad gashanaysaa oo yani information-kan aad iska hubi. Number-ka ayaan gashtaysaa arkaysaan 41 waa arkaysaan. Okay, halkan wow email-ka waa kan markaa yani aan isdhihi karo haddii aad khalado fadlan email-kaaga iska sax oo iska soo hubi email-kaaga. Okay, email-kaaga iska soo sax insha Allah. Okay, email-kayga haddaan gashto waxaan sameynayaa email-kayga gashanaya. Okay, sa arkaysaan email-kaygina waa aan gashtay. Okay, email-kaygina waa aan gashtay. Email-ka aad iska hubi. Dabcan aniga ayaa isku hubinay waxba moodaya inuu saa ku khaldan yahay. Dabcan email-kaaga iska soo hubi. Okay, email-kayga waan soo hubsaday. Okay, hoos imaanaysaa marka intaas waa ka soo dhamaatay. Hoos imaanaysaa halkan waxaa ka dhiganaysaa account plan. haddaa rabto 3 sano waad ka dhigan kartaa yani website-kaaga inuu domain-kaaga yani mataqaanaa uu update wax update uusan yeelan siis ahaado. Okay, 12 bilood ayaan ka dhigtay inuu 12 bilood ii shaqeeyo. Okay, saasaan ka dhigtay $4.95 way bishii. maxaa bishii wax ka sameynaysaa lacag aad u fara badan. $4.95 maalin barkeed baa ka sameynaysaa haddaad lacagta u furato oo yani wax badan aad kusoo barito si professional ah. insha Allah anna taa waa ka caawin doonaa. soo kale 2 days ayaa mataqaanaa asxaabta 2 days soo xareysata oo markaa yani ila soo hadasha insha Allah. soo kale waxaan sameeyay soo arkiiseen Telegram channel u gaar ah markaa yani asxaabtaas ayaa insha Allah chance u heshay insha Allah si fiican ay u caawin doonaa ilaa ay lacagaha u furtaan. soo kale fursad ay haysataa insha Allah aad mataqaanaa labada maalmood aad kaga qayb gali karto dhalinyaradaas. Okay, sa arkaysaan waxa markaa aan maanta soo sheegayno free SSL certificate ah oo yani kambaniyada adduunka ku dhisay oo aan la jabsan karin oo qofilkaas ah adiga waxaad ku heshay si free ah haddii aad linkiga yani description-kan yaala aad iska soo diiwaan gelisay. dabcan sa arkayso. Okay, waxaad sameynaysaa halkan free aad ku heshay sa arkaysaan. Okay, hoos soo bax. dabcan hoos soo bax. halkan tigta iska wada qaad kuwan yani muhiim maaha. tan oo kale haddii aad rabto tanoo kale iskaga darso haddii aad rabto balse aniga hadda marraba ma doonaya aan. Okay, waxaad sameynaysaa yani qiimaheeni waxa uu noqday $59 wuxuu noqday $65 60 ayaa waxaan loo sameeyay qiimo dhimis 60 ayaa waxaan loo sameeyay boqolkiiba 60 yani $60 oo qiimo dhimis loo sameeyay $59 aynu hawsheeni iyo barnaamijyadeeni dhan ku fushinay. Okay, waxaad sameynaysaa markaa credit card. waa inaa haysataa marka koobaad card yani waa inaa haysataa card number waa inaa haysataa oo credit card loo yaqaano Mastercard, Visa card. halkan waxaa gelinaysaa Visa card-kaaga yani numberkiisa dheer ama credit ama yani Mastercard-kaaga numberkiisa dheer aad gelinaysaa. halkan waxaa gelinaysaa xilliga marka uu yani card-kaaga yani aan dhahe 3 number oo gadaalkiga yaala ayaad gelinaysaa. soo kale halkan waxaa gelinaysaa expire date xilliga uu card-kaaga dhacay ayaad gelinaysaa. dabcan saa arkayso. Okay, haddaan intan option waa buuxin doonaa insha Allah. Haddii sa arkaysaan waan buuxiyay yani qaybtii payment information oo ah credit card-ka yani credit card waxa loo yaqaanaa Visa card iyo Mastercard card-kaaga numberka dheer yani number 3 number oo gadaalka yar iyo expire date-ka xilliga uu dhacayo ayaad gelinaysaa inta. Okay, waa iska soo hubin kan aad soo sameynaysaa wax walba waa la soo chicken gareeyaa. dabcan sa arkayso yani waxaad ka soo chicken garanaysaa domain-kaaga inuu ku saxan yahay. dabcan waa ii saxan yahay. information kale iska soo hubi. dabcan phone number-kaaga iska soo hubi. soo kale Gmail-ka oo aad iyo aad mataqaanaa email-kaaga important weeyaan iska soo hubi isagana. Okay, waa email-kaaga ku verify garaysan lahayd isaga lagu dirayaa waxaan oo dhan dhaa. waxaad sameynaysaa saas ka soo hubi. dabcan kadibna kaarkaagina waa buuxsatay. Okay, hoos imow waxaad tiraahdaa halkan click see I have read and agreed kadibna waxaad tiraahdaa submit. sidoo kale saaxiibayaal waxaa jirta ciladan haddii ku soo baxdo ciladan ay ku qoran tahay credit card problem. soo kale yani kaararka yani Soomaaliya qaarkood ee kuma shaqeynayso. dabcan ciladan haddii aragto yani waxa sameeyay wax loo yaqaan check out samee oo PayPal-kaaga lacagta u mari. dabcan kaararka dhan ma waxa laga yaabaa in aan kaarkayga ciladan ay tahay balse waxaad isticmaashaa step-kan. soo kale sida PayPal loo sameystana waxaan ku soo dhigi doonaa yani linkiga aad iska diiwaan gelinayso description-kiisa halkan hoose ayaan ku soo dhigi doonaa sida PayPal video-ga aan kaga hadlay. dabcan okay, waxaad sameynaysaa markay saa ku soo qamato waxba ka khaldameysa wadanka kale hadda United States inuu noo dooray balse wadankaagi ayaa dooranaysaa marka aad joogto aad dooranaysaa. Okay, haddaan soo doorto. Okay, saaxiibayaal sa arkaysaa waa isbedelaysaa waan soo doortay. halkan oo kale iska hubi. soo kale yani domain-ka iska soo hubi. ciladan ayaynu markaa hadda xalin doonaa. waxaanu isticmaali doonaa PayPal markii hadduu kaarkaa diiday way. dabcan sidoo kale. Okay, hoos u bax.
okay email kana iska hubi domain kana si fiican iska hubi hoos bax marka laba option way payment information marka imaanayso yani waxa taabataa more payment option ku dhufo marka ku dhufato halka marka ku dhufato Paypal taabo halka dhigay ka Paypal ku dhufo okay Paypal marka saa ku dhufatay waxa sameeysaa hoos u bax waxa tiraahdaa submit waa xayro aad iyo aad u fudud okay next email ka marka galaysa Paypal ka ku samaystay next aad aysa kadib soo kale marka next tiraado waxa ku weydiin doonaa security challenge wax loo yaqaano inaad robot tahay inaad ma taqaanaa caadi ah tahay ayuu kula hubin doonaa dab kadibna verify dheh okay saa arkaysaan security challenge-gan waa dhaafnay password ka markan gelin waxa ku dirayaa yani text yani ku leeyahay numberkaaga ayaan waxaan ku dirayaa code oo yani aad iyo aad ayuu hubinayaa dabcan code-ka ayaa mobile-kaaga ka eegaysaa kadib waad gelinaysaa dabcan tune aad dhihi doontaa okay hadda ayaynu markaa lacagta yani ma taqaanaa diri doonaa anagoo markaa isticmaali doona wax loo yaqaano check out maadaama uu naga diiday kaarkii balse adiga waxa laga yaabaa kaarkaaga inuu shaqeynayo aniga ciladan haysato adiga kaarkaaga isticmaal haddii kugu dhacdo ku xalismi weyso waxa isticmaashaa Paypal isticmaal adigu markaa yani samaysanaya haddii aad Paypal hore u lahayd oo kale yani waa okay kadibna waxa dhahaysaa agree and continue aad dhahaysaa marka saa arkaysaa lacagtii waa tan $59 saas u dabcan saaxiibayaal saa arkaysaan waa inuu markaa iibsanay yani domain-keennii saa arkaysaan halkan saa arkaysaan okay waxaad samaynaysaa markaa saa aad aragto soo ku soo qoro dabcan haddii aan soo dhaweeyo idiin soo dhaweeyo okay saa arkaysaan haddii aan soo dhaweeyo domain-keennii waan iibsanay inagoo markaa aan usii marnay Paypal aad iyo aad u fududahay inaad samaysato waxaan kuu soo dhigi doonaa linkigan hoose description-ka ayaan kuu soo dhigi doonaa haddii aadan Paypal samaysan karin insha Allah anaa ku xalin doona qaabka marka aad domain-kaada u iibsan lahayd oo marka website aad lacag u sameyn lahayd okay saa arkaysaan yani waa inuu sameynay marka waxaad samayn doontaa waxaad tegaysaa yani gmail-kaaga ayaad tegaysaa gmail-kii aad ku samaysatay ayaad tegaysaa yani ma taqaanaa information-ka aad kasoo buuxisay okay waxaad dhihi doontaa inbox aad ku dhufan doontaa oo waad ka dhigarayn doontaa okay message ayaa noo soo dhacaya marka ay ku qoran tahay Bluehost saa arkaysaan waa tan Bluehost okay Bluehost markaa saa ugu dhufato waxaad samayn doontaa saaxiibayaal waxaad dhihi doontaa verify your email ayaad dhihi doontaa oo waad verify garayn doontaa email-ka fadlan email-ka iska sax markaa Bluehost aad domain-ka ka iibsanayso fadlan iska sax email-kaaga okay inta markaa samayso continue noo soo diraya haddana mar kale aynu gmail-kii ku laabanayna saaxiibayaal oo waxaynu dooran doonaa inbox hadaynu dooranay haddana waxaan arki doonaa message aan kii hore aan ahayn oo markaa ina loo soo dirayo dabcan oo markaa kaasoo cadaynaya inaynu iibsanay mataqaanaa Bluehost inuu ka iibsanay mataqaanaa yani domain waxaynu ka arki doonaa gadaal aynu ka arki doonaa dabcan message-kaas okay haddii aynu markaa sii wadano yani shaqadeennii message-kaas noo soo dhacaya dabcan waxaad dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay saa arkaysaan horta halkan waa wixii aan iibsanay price $59 base adiga yani waa inay kugu jirtaa yani wax loo yaqaano $10 meelahaas waa inay kugu jirtaa oo markaa yani uu charge goosanayo bangiga markaa kaarkaaga haddii $59 kugu jirto kaama bixi doonto lacagtaas balse kaarka bangiga wuxuu lacag ayuu goostaa intaas ayuuna kaarka mataqaanaa shaqaalayaashiisa u qaybiya marka waa inay lacag gaar ah $10 gaar waa inay kugu jirtaa okay waxaan dhahaynaa markaa create your account ayaan dhihi doonaa saaxiibayaal saa arkaysaan domain-keeni ayaa halkan noo soo baxay saa arkaysaan okay domain-keeni ayaa halkan noo soo galay okay waxaad samaynaysaa halkan waxaad samaysan doontaa password aad samaysan doontaa privacy policy-geedana waan aqoonsanahay kadibna waxaad dhihi doontaa waan ku raacnay kadibna waxaad dhihi doontaa create account ayaa dhihi doontaa okay saaxiibayaal saa arkaysaan yani waxaan dhihi doonaa next aynu dhihi doonaa waxaan dhihi doonaa go to login aynu dhihi doonaa login gare oo waxaynu gashan doonaa password-keeni iyo markaa waxaynu gashan doonaa iyo website-kii magaciisa aynu gashan doonaa okay saaxiibayaal halkan yani waxaynu gashan doonaa domain-keeni waa kan saa arkaysaan halkan waxaynu gashan doonaa password-kii markaa ayaynu gashan doonaa okay password-kii haddaynu gashano mar kale soo kale saaxiibayaal waxaa noqon doontaa qof markaa yani website-kiisa ka shaqaysta yani lacag fiican ka sameeya insha Allah hadduu alayno waxaasoo dhanna aniga ku tababari doona kana caawin doona balse adiga waxaa ku dadaashaa labada maalmood markaa yani inaad mataqaanaa maadaama aan aad iyo aad mashquul ahay
waxaad samaysaa labada maalmood insha Allah aan qabtay insha Allah ila soo okay saaxiibayaal haddii aad soo gaartay muuqaalkan halkan oo ah qaybtii ugu dambeysay markaa haddii aad soo gaartay insha Allah qaybtan markaa waxaynu samayn doonaa website-kii aynu guda geli doonaa inagoo markaa qayb fara badan u samayn doona dabcan insha Allah haddii aad halkan soo gaartay oo domainka iibsatay insha Allah waxaan kula samayn doonaa website-kaagii oo markaa qurux badan haddii aad insha Allah waxaad soo gashaa Telegram-ka markaa description-ka iyo qaybta comment-ga aan ku soo gali doono kadibna waxaa samaysaa ila soo hadal oo markaa waxaad tiraahdaa يعني وأن سمي برسسك انتسي هو طبعا أديكم مركا راعية لينكي مركا وليبا مركا 65 ديسكونت قيمها أي نسميني طبعا إن شاء الله واحد سميسا إلى صو هذا هدول إنه برسسك انتسي كلنا وين بميدونا سوكر السحب يالفضل المقال كالكسار إن شاء الله